muuqaalkiina maantay wuxuu ku saabsan yahay daawada ciidamada gaarka ee boqortooyada Ingiriiska iyo qaabka ay u ilaaliyaan boqortooyada. Waa ciidamo aan loogu talagelin inay korkooda qof taabato. Waa ciidamo u labisan qaab dagaalyahanadii hore camal. Waa kuwa ku duwan ciidamada maanta. ciidamada qof kasta oo ku soo dhawaata ama xadkeeda soo dhaafto waxay amar u qabaan inay wixii rab ku sameeyaan. Xataa fardaha iyo xayawaanada boqortooyada waa kuwo u sheega dadka meelaha ay istaagi karaan inaynan xadkooda soo dhaafin. balse dadku waa kuwa mar walba dhaafa xadkii loogu talagalay. daawade muuqaalkiina maanta intaad u gudagelin waxaan ka codsanayaa inay noo saartaan subscribe si aan u gaarno 100 subscribe. maasadin daawade. muuqaalkiina koowaad wuxuu ku bilaabanayaa ninkan ka tirsan ilaalada gaarka ee boqortooyada taagan afaafka hore ee albaabka boqortooyada. waxaan arkaynaa inuu u imaaday ninkan tiktokerka ah wuxuuna isku dayayaa inuu la kala faraciyaano. qaad dheer kadib dadka xataa way la yaaban yihiin ninkan shuruucyada oo jibinayo. balse dulqaad dheer kadib ninkii ilaalada ahaa waxaa ku dhacaya ninkii tiktokerka ah wuxuunan filaynin. ogow wax kasta way samayn karaan ciidamada boqortooyada haddii dhankooda la soo aado xadkuna la soo dhaafo. waxaan arkaynaa asagoo fajacsan inuu goobtii ka tegay ninkii tiktokerka ahaa. muuqaalkan kale gabadhan waxay iska ciyaaraysaa dance balse waxay dhaaftay goobtii loogu talagalay inay istaagsanaato. ninka askariga ah ee ilaalada wuxuu dareemayaa inay xad ka soo dhaaftay. dulqaad dheer kadib goobtuu iskaga tegaya asigoo ixtiraamaya. kuligtan waa badbaada isdhihi karaa haddaana wax lagu dhufanin. aadan way iska cararaysaa iyadoo yaaban waxay samaysay inay qalataane way ogaat. gabadhan waa youtuberad wax walba ay samaynaysana way ogtahay. waxay u samaynaysaa challenge ay samaynayso. waxay isku dayaysaa inay taabato faraska laakiin waxaa ku qaylinaya ninka saaran faraska. wayba qoslaysaa markuu ninka ku qayliyo ilaa ay ka yimaadeen booliiska boqortooyada. wayna la hadlayaan booliiska. waxay kadib gabadhii waxay bilaabaysaa baashaalkeeda iyo farak ciyaarkeedii ilaa ay ka yimaadeen ciidamada militariga ah ee goobta. waana la hadlayaa laakiin gabadhan warkeeda waa cad yahay. waxaydan waa inay youtube duubataa wayna iska ciyaaraysaa. ugu dambeyn waxay booliisku u sheegaysaa inay fiidiyowga duubato faraskana taabato goobtan ay ka digi doonto inaan u soo laabanaynin mar kale. wayna samaynaysaa sida arkaysaan waxayna taabanaysaa faraski ayadoo faraxsan wayna ka tegaysaa. gabadhan waa goor go'aan adag la dhihi karaa. ninkan aa ujeediin wuxuu taagan yahay gidaarka boqortooyada. waxaan u imaanaya booliiska boqortooyada waxaynu sheegayaan inaan istaagi karin goobtan oon iskaga tago balse uu diidayaa. wuxuu u dagaalayaa booliiskii qaabkii u dagaalamaya ujeediin inuu ninkii xataa fir iyo wax badan ridooyo oo difaaca galayo wuuna ka soo tegaya ilaa laga soo bursado. waxaana ku soo badanaya booliiska. ugu dambeyn isagii baa isdhiibayo waana la xirayaa saa ujeedaan daawada. daawada muuqaalkan kale aad buu u xiisa badan yahay. ninkan boqortooyada ka mid ah ilaalada iyo nin kale waaye wayna kala aarsan doonaan saa arki doono. waxaa u imaanaya ninkan tiktokerka ee jaakada wato wuxuuna u imaanayaa ninkan boqortooyada wuxuuna la fara ciyaarayaa kaftan tiro badan. xitaa wuxuu isku dayayaa inuu korkiisa taabto balse waxaa ku dhacaya dharbaaxsho iyo fiir isku dhex jur camal alaab la dhihi karo. meeshuuna ku dhacayaa isagoo suux camal iska dhigaya jiifoo dheeraysta leh. qof walba oo meesha taaganna way daraysan tahay ninkan qaladka oo sameeyey abaalmarintiisa inuu helay.
ugu dambeyn ninkii jaakada watay ee tiktokerka wuxuu ka kacayaa meesha markii qof la hadasho waayo wuuna iskaga tegayaa asigoo cariisan. ninkii boqortooyada ee ilaalada ah isna wuxuu bedelanayaa goobta. waxaan arkaynaa inuu sii socdo albaabka boqortooyada. wax yar kadib waxaa imaanaya ninkii tiktokerka ahaa isagoo isleh isku sawir ninkan kale ee boqortooyada. maba ogaba inuu yahay ninkii hore. wuxuuna wataa tiktokiisa asigoo duubanaya. wax yar kadib waxaa arkaynaa asigoo tiktokiisa duubanaya in saa'id loogu qaylinayo. ninkan wuxuu dareemayaa in la cunsuriyeynayo. wuxuuna ku qaylinayaa ninkii ilaalada boqortooyada. maba ogaba inuu isla ninkii yahay. qaylo dheer kadib ninkii xanaaq daraadiis wuu iscelin weeyaa. asna waxaa ku qaylinaya ninkii kale ee boqortooyada. wuxuuna ku dhufanayaa dharbaasho heer oo suuxay ninkii ilaalada boqortooyada ka tirsanaa. waa aasay maa dhihi karnaa mise caarale baa dhihi karnaa. war daawada muuqaalkiina maanta intaas ku yahay. muuqaalkiisa kale intaa kulmeen waxaan leeyahay 100 subscribe.